بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتين بميل والبوء الدنيا كي جوكتان waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dunida iyo haatan qodobadaad ku daawan doontaan waxa kamid ah hadii Allah weyn ee waahidka uu raali ka noqdo ka waran hadii isu tagi Imaaraadka Carabtu ay ku hanjabayso in ciidanka ilaalada kacaanka ee wadanka Iran ay dhulka ku dari doonto sidee kula tahay ma aaminsan tahay maxay isu tagi Imaaraadka Carabta isku og tahay barnaamijka ku daawan doontaan hadii Allah ka dhigo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo raadinaya mar uun wax Iran ka damiin sidee wax u jiraan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan waliba waa sidee wada hadaladii ugu dambeeyay ee gobolka Bariga Dhexe yaa la wareegay dhexdhexaadintii Mareykanka iyo dawladda wadanka Iran ma la quustay mise wali qir ayaa la kala taagan yahay xeerarka caalamiga ah ayay u xaqlinayaan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo dawladda wadanka Talyaaniga oo ku hanjabaysa samaysashada bambooyin nuclear ah maxay tahay sababta Meloni ayaa noo sharaxaysa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii uu alla ogolaado dawladda wadanka Ruushka oo markaas ay gantaalada iyo hubkii dawladda wadanka Mareykanka ay ku faani jirtay hadda sidii qashinka oo kale u kala tuuraysa xagee la isku tijaabinaya warbixin xasaasi ah ayaad barnaamijka ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo Israa'iil oo bilowday foodo iyo dacayad ka dhan ah isu tagi Imaaraadka Carabta Ibliis iyo ehelidii ayuu ma run sheegay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo muxuu yahay maxay tahay absida ay markaasay aan ku celiyo maxay tahay barnaamijka ama dabinka isu tagi Imaaraadka Carabta ay u dhigtay Saudi Arabia iyo wadanka la yiraahdo Qatar laakiin wadamadaasi ay ku fahmeen fashil culus ayaa dhacay barnaamijka ku soo qaadan doonta hadii alla ka dhigo ayaan ku soo qaadan doonaa maxay ka dhigan tahay inay kala jabaan kooxaha mujrimiinta ah ee xijaaban ee ka talinaya gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan wadamada Khaliijka la isku yiraahdo barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo guud ahaan qodobadaasi aad wixii nagu soo korro ayaa barnaamijka dunida iyo haatan ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo warbixinadan qaar kood waa xasaasi fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay oo aad kanaalkan soo booqato si yaro kooban subscribe si la wadaag muuqaalka saaxiibadaad aragtidaada ka dhiibo dadka aragtida ka soo dhiibanaya iyo qaar ka nasaxayna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin mahad gaar ayaan u jeedinayna saaxiibadayadii hore hadaa kamid tahayna oo waa hore aad kanaalka subscribe tireeyood gambaleelka furteen gobonimo ku nool soo dhawo mar kale wagaag sheekadan ku bilowno markuu ugu horeyso horta xaaladii ugu dambeeyay gobolka Bariga Dhexe sheekadiisu way iska adag tahay wada hadaladii dawladda wadanka Mareykanka iyo maamulka shuftada ah ee Mareykanka iyo Israa'iil hogaaminayaan horta qir ayaa la kala taagan yahay laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda wadanka Iran Abbas Araji waxa uu sheegayaa in Iran ay mar walba wada hadal diyaar u tahay laakiin wada hadalka aan rabno wax uu yahay buu leeyahay mid cadaalad iyo xushmad iyo ixtiraam ku dhisan ayuu leeyahay laakiin madaxan ka gon wala muslim kuma cabiidsimo laakiin intana loo handadayo miiska soo fariista waa idin gumaadayna waa idin baabi'inayna wax sideedaba intana loo hanjabayo oo taaka hanjabaad ahay miiska saaran tahay nala kama sugayo ayuu miiska nala kama sugayo hadaalin ayuu leeyahay waxa kale uu sheegayaa inta aan wada hadal iyo barnaamij iyo qarac kale aan la gelinba Mareykanka horta 5 qodob waa inuu fuliyaa totally xabad joojintu waa inay irigashaa cunaqabateyntiina waa in la qaada lacagaheena waa in la soo siidaya xogaga inaga ina taabacsan gobolka jooga guud ahaan xabad joojintu waa inay ka dhaqan gashaa hadii alla ku roo yahay hubkaada nuclear hadii laga wada hadlayana diyaar ayaan unahay laakiin waqti baa loo baahan yahay horta Mareykanka maba aaminayna marka ala inta warku waxa leeyahay Abbas Araji waxa uu sheegayaa in ay wada hadala markaan hadda sida u muuqato dawladda wadanka Shiinuhu ay la wareegtay dabcan qodobada miiska saaran hadda kulay wararka qaar ayaa sheegaya Trump inuu yiri intaan Pakistan iyo waxaan wadamada noocan oo kale tan u tanaasuli lahaa wadan xoog leh oo aan hadii aan u tanaasulo sharaf kaga helayo ayaan u tanaasulaya oo hoggaanka u dhiibaya wuxuu jeedaa dabcan wadanka Shiinaha inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Shiinuhu ilaa iyo hadda aanay si dhab u shaacin in iyagu ay la wareegeen laakiin waxay wariyeen in ay wada hadalka si ambaqaadayaan maxaa yeelay carab marka hore calool shaqeystay ahaayeen dawladda Turkiga warkeeda bada Pakistan iyo Turkiga Imaaraadka dhanka Mareykanka waxba isma dhaamaan maxaa yeelay waxay hore u dhexaadeen baa la gartay heshiiska magaalada Gaza intuu ku dambeeyay oo Turkiga waliba mas'uul ka ahaa marka Turkiga iyo Israa'iil iyo Imaaraadka iyo Saudi Arabia waa shaydaan mid kamid ah markuu doono Mareykanka adeegsanay weeye dan muslimiina kama shaqeeyaan dan islaamna kama shaqeeyaan danaha Israa'iil iyo Mareykanka
ayay ka shaqeynayaan dhamaantood waxba yaan lagu barbarino Turkiga la weeraraya Israa'iil ba weerarayso Pakistan waxa raba nimankaas sidii ku jiri lahaayeen haliyayaal laga dhigaya mooyaane waa qush iqash weeye waa isma dhaanta iyo dhashada weeye waxba yaan lagu kala saarin marka Israa'iil iyo Turkiga ma taqaanaa balaayiin dollar ayaa hadda ganacsi u socda Masar ay u dagaalamaysa hadda ciidanka Imaaraadka Carabta geed ujeedada laga leeyahay maxay tahay وهذا الروش شيء dadka dhulkeeda sheeganaya shacabka Gaza ee masaakiinta ma la baabi'iyo ma wax loo taro ma raashin la siiyo macadowga laga dhiciyo wax kale iska daama gacan kurmas loo gacanka Philadelphia ma loo furo maxay tahay ciidanka Israa'iiliinta gudaha wadanka Masar ku jiro ma la iska dhiciyo maya miyaanay Carab ahayn Suuriya Israa'iil baa weerartay 90% ma laga dhiciyo ama 40% miyaanay wadan Carab ahayn Imaaraadka Suuriya waxa marka ma aha la leeyahay marka waa sheeko Mareykanka Israa'iil wataan weeye kolbana kaar ayaa la hoqanaya marka laakiin aanu nimaano Imaaraadka Carabta waxay leedahay sida uu qorayo telefishinka barta Mareykanka la yiraahdo CNN waxay qoraysaa Imaaraadka Carabta waxay leedahay hadii uu dagaalka dib u bilowdo oo ay isku daydo Iiraan marka inay soo weerarto daqiiqad gudahooda intaan weerarno oo aan weerarkeeda ka jawaabno ayaa Iiraan waxaanu ka dhigaynaa fahal tara lahum min baaqiya ciidanka ilaalada kacanka way iswaalwaaleen ciidan xoog leh bay isku arkayaan laakiin Imaaraadka cid ka weyn oo ka xoog badan ma jirto Iiraan wali xiniyahayagu ma arag xiniyahayaga tusayna waa baabi'inayna hay'ad isweydiinaya markuu xal leeyahay awoodda ay Israa'iil ee Imaaraadka Carabta Iiraan ugu hanjabayso ma islaagiyada ku difaacato markuu xal leeyahay ma jiraan in few hours waliba leedahay hadii dagaalka inta lagu laabto oo Iiraan soo weerarto daqiiqado gudahood ayaanu ka jawaabaynaa diyaaranu nahay waxa weeye cid noo dhigantaa ma jirto Imaaraadka looma badho waxyaab leh marka ninka wuxuu yiri macnaa waalan buu yiri masaacadan baa laga heesaya war Imaaraadka aanu naqaanay miyaanu ahayn Imaaraadkan Iiraan u dhaaranaya muxuu yahay mise waxaan nimankan waa la qasbayayo xiniyaha la hayaayo dhaha yeel ayaa la leeyahay miya awood Imaaraadka Carabta ay isaga difaacayso Iiraan maxay Sacuudi Arabiya isaga difaaci weeday maxay Yemen koonfurteeda ugu difaacan kar weeday awood ay Iiraan hadda Imaaraadka Carabta ay leedahay daqiiqado gudahooda kaga jawaabaya ay leedahay xagee waxaas awood ay ka keeneen waxa jirta hub nuclear ah oo Israa'iil ay keentay gudaha isu tag Imaaraadka Carabta oo looga talagalay in Iiraan lagu weeraro waxa jira oo la soo qaaday tabcan qodobada qaar kamid ah soo socda inuu ku jiro ayaan filayaayo waxa jira diyaar garow waxa jira wadamada khaliijku inay kala jabeen qaarna Israa'iil iyo Mareykanka si toos ah u raaceen qaarna boqolkiiba 50 ay raaceen ayaa jirta marka waxa jirta hub nuclear ah oo la rabo hadhow in Imaaraadka Carabta dusha laga saaro ama bambooyin culus oo nuclear u dhigma oo farsamaysan oo Imaaraadka Carabta la keenay oo Israa'iil Mareykanka ay keeneen hadhowna la rabo in Imaaraadka la yiraahdo ord bambooyinkan ku sinay ord Iiraan ku weerar oo la yiraahdo Iiraan lagu weeraro oo la yiraahdo Imaaraadkii ba waxa sameeyay wax kala jira marka Iiraan waxa leeyahay warka way la socotaa laakiin jawaab kama bixin inkastoo sarkaal saro ciidanka ilaalada kacanka ka tirsan uu yiri anagu Mareykanka iyo Israa'iil iyo Carab midna ma naqaan uu yiri cid allaale cidina soo weerarta way ogaan doontaa buu yiri waxaan anagu nahay waxaanu sameeyno marka wuxuu leeyahay cidii awood iyo faataabakh iyo wax isku hayso hana soo weerarto marka awoodda Imaaraadka Carabta maxay adiga kula tahay Iiraan ay ugu hanjabayso mase waxa weeye miidaama dhigamal hadii malag dhawaaqayo waqtigiisa ku dhamaaday Imaaraadka Carabtu waayihii ay gobolka ku siiyay jiran ayaa dhamaaday inkastoo qaar kamid ah khubraduna ay leeyihiin yani waa hore lacagahooda Amerika iyo wadamada Asia iyo Amerika iyo meelaha adduunka wadamada qoyska yar ee meesha maamulaya يعني أدونك العقد ميل والبالعقد بيكتين بالله دي سم ميل لو حيرو ميد كل مركز وقاتان وودن كيبقى عركيهين مركا مدد لجميسونية وحين يلا لا يهيو لقصبيا مسدو قضية عياريا هذه كلها هاي بركز وديب تركتيدن وحاجات دينا عكلا قضب كلا دولة ودن كتلياري جا وحلاد هاي أنا قلنا نقولنا سمي سنينا حد قرشان ودنا عرفتيهان شعب كانوا ويديننا لقال هانا وديار جروبينا سياس أنا وديار جروبينا نيوكليران سمايسنا جورجيا ميلاني قبل الله يرادو أما ميلانو أي هذا الكاس الجديد من أهمرك يقول رئيسي وحنا لا يدهاي قبلنا وحكوا عند عنا سهرتا قبل فريد ويا الله بكل لبي لبعتنكي أيام فيليا ودنك التلياري إن تلا ده اللي وريكتي تلياري قول دقال هم إيو بلايا يدبر كيشران إن كستو أي تاي قولي كان عقانت مدت لوب تيريو أي تهاي لكن قبلنا وحلا ده هاي أنيقو talyaaniga nuclear aanu sameysanaynaa maxaa yeelay waxay ku leedahay dunidan hadda cid allaale cid aan nuclear haysana xushmad dunidu kuma laha cid ixtiraamayso ma jirto
amnigeena cid damaanad qaadaysa ma jirto maadaama dawladda wadanka Mareykanka aynu isku hadlaynaynay inta ka soo saran xulufo ahaynoon xiniyahay uu aqdigna ayna leedahay ciidamada inay ka qaadanayaan wadin ka tagaya Talyaaniga isku tashan doona hub nuclear aan samaysanayna cidi ku weerarmayno laakiin wadankaygu si u nabad galo waa inaan nuclear samaysana maxaa yeelay Talyaaniga waxay kamid tahay wadamadii dagaalkii labaad ee dunida cagta la mariyay bay kamid tahay iyaga iyo Jarmalka isku dhinacay jireen marka waxa la leeyahay hadda waxa la gabadhaas ma jirto waa shacabkana weydiisanayna waa inaan hub nuclear samaysana marka sida leedahay waxa la leeyahay inkastoo Talyaanigu de ururka midowga Yurub wadamo badan oo ku jira ama hal iyo laba de Faransiiska ku jira hub nuclear buu leeyahay marka waxay gabadha marka waxay leedahay cidda aan nuclear ah la haysan waa loo yaaba maxay marka gabadhaan aragtay gabadha waxay aragtay saaxiibtinimada wadanka Mareykanka wax jirinaan ahayn adduunkan wax ilaalinay inay jirin dawlad walba danteed inay number 1 u tahay sida daraadeed cid la isku halay inay jirin waxa la isku halaya inay tahay waxa kaliya ee gacantaada ku jiro waxay aragtay sidii Iran loo weeraray sida isaga dhicisay awood dawladda wadanka Ruushka ay muujinayso inkastoo la leeyahay waliba Talyaaniga iyo Ruushka ma kala foga wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda dawladda wadanka ee Talyaaniga dhawr wuxuu lahaa anaga inoo sheegayaan buu Jarmalka iyo Faransiiska Ruush ma laga adkaan karaa buu yiri dadka Hitler iyo hadii la ku rooyahay madaxda la yaqiinay Talyaaniga iyo Jarmalka cagaha dhulka u dhigay ayaa rabtaan buu inay dafka noo gelisaan marka waxa la leeyahay dawladda wadanka Talyaaniga xitaa waxay u sii dhawaanaysaa dhinaca iyo wadanka la yiraahdo Ruushka ayay u sii dhawaanaysaa way marka doona waxay ku soo koray laakiin in hadda ma loo ogolaan doona dabcan Mareykanka ma ogolaan doona ma diidi doona maxay Talyaaniga la kulmi doontaa ururka midowga Yurub laftirkiisa hadii ay Talyaanigu nuclear samaysanayso ma laga yaabaa Jarmalka inay samaysato wadamo kale ma laga yaabaa inay samaystaan ma wax kala dunida soconaya hadday marka waxa lagu leeyahay wadaan waxay ku leedahay war anagu midowga Yurub ayaanu nahay hadaan doono dhamaantan aan wada samaysano ama hadda maadaama dawladda Faransiiska oo kaliya haysata annaga barnaamijkaas leh marka waa dadaal ayaa socday laakiin dawladda dunida hadda la joogo cidda aan nuclear haysan waa cad hilib ah oo meel cid la yaala cad hilib ah oo meel cid la yaalana cidii gaajaysan ama cidii baahan baa cunta marka waxa la leeyahay Talyaaniguna diyaar garowgaas ayay ku jiraan waxa Ruushka hadii aynu eegnona hub waxa jiray casri ee dawladda wadanka Ruushka ee Mareykanka ku sheegaysay oo wadanka Ukraine la geeyay jiray oo gantaaladan faad la yiraahdo iyo patriotic iyo qubbar xadiidiya iyo waxaan ayaa jirtay inkastoo dawladda wadanka Mareykanka ka yara baqbaqayso ka yara wareeganaysay laakiin hadda Ruushka ciidamadiisu waxay bilaabeen sida ay qorayaan warbaahinta gaar ahaan jariirada la yiraahdo mowqica difaac al-Arabi la yiraahdo inta badan difaaca iyo hubkii barnaamijyadaasi ka sheegay waxay leedahay Ruushka waxay bilaabeen hadda inay beegsadaan meelaha hubka dawladda wadanka Mareykanka ee dhinaca satarla muxuu ahaa ee gantalada ka hortaga patriotic iyo thad iyo waxa patriotiga hal kamid waxa la leeyahay 15 milyan oo dollar ayaa la gadaya gantaalkaas halkii xabo kamid ah halka nidaamkan la yiraahdo patriotiga iyo kan kale isaguna la yiraahdo thadka isaguna 5 milyan 6 milyan meelahan ayuu joogaa waxaan u maleynayaa patriotic inuu 5 milyan yahay kan kale 15 milyan yahay kullay ma sahlana kan ugu yar waa 5 milyan oo dollar weeye patriotiga ama thadka marka thadka waliba inuu qaali yahay ayaan jecelahay oo isagu 15 milyan oo dollar ayuu joogaa halkii gantaal kamid ah dawladda wadanka Mareykanka sanadkii dhanba 100 xabo ayay soo saartay baa la wariyay marka hadda marka si difaaca Ukraine uu madhalis u noqdo Ruushku waxa uu bilaabay inuu garaaco meel kasta oo nidaamyada difaaca cirka markaas Ukraine ay yaalaan marka inkastoo la leeyahay Ukraine way si baaba'aysaa laakiin iyada laftirkeed diyaarado drones ayay gobolada Moscow illa iyo gobolka la yiraahdo Belgorod la yiraahdo xuduudka ku yaala Ukraine iyo Ruushka diyaarado drones ah oo sidii qashinka ugu sii deynaysa habeenkii ugu yar tahay 200 300 200 ilaa warshado ku yaala gudaha wadanka Ukraine ayaa laga soo saaraya sida la leeyahay diyaaradahaas droneska marka hadda marka Ruushku wuxuu bilaabay sida la leeyahay Ukraine inuu indhaha tiro oo diyaaradahaas iyo meel laga hagaba aanay jirin marka hubkii Mareykanka uu keenay iyo reer galbeedku ay keeneen ee la isku haleynayay waxa uu noqday baa la leeyahay qushqaash dukum daakum ayuuna ka dhigay marka horeen waa u bilowday dabcan wax cusub ma aha oo dagaaladan inta badan hubka Ukraine ku dagaalamayay waxa la wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa la wagaag
dhinaca kale waynu isla arki doonaa wixii ku soo kordhay laakiin ruushku ma kaftamo waad aragtaan gantaaladu soo saartay iyo qaabkooda iyo sida ay yihiin iyo wuxuu soo saartay gantaal yiraahdo Sarmat oo dunida oo dhan meesha la rab lagu garaaci karo saacadii 35,000 oo kiiloomitir goynaya 16 madaxyada nuclear ee qaadaya waa waxa reer galbeedka argagax ku riday weeyaan Israa'iil ayaa waxay dacaayad iyo faatabakh ay la daba kacday isu tag Imaaraadka Carabta maalin ka horeysa waxaan idin sheegay in xafiiska Netanyahu uu sheegay inuu Imaaraadka Carabta doon booqasho ku tagay muddo halkaas soo joogay ciidamo ay geeyeen nidaamka difaac ay geeyeen hadii laba ku rooyahay oo Imaaraadka Carabta madaxdooda la soo kulmay durbaba wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka shuftada ah Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna beeniyay waxay yiraahdeen hubnana looma keenin waxa durbaba waxaas waa laga sii baxay waxa la soo dhigayba taliyaha ugu sareeya militariga xogaga shuftada ah ninka la yiraahdo Ilan Zamir ayaa la yiraahdaa ninkaas aad la soo dhigay oo marka joogo meel ma garanaysaa fadhiyo isu tag Imaaraadka Carabta madaxdoodii la fadhiyo la sheekeysanayo baasharay ayaa la soo dhigay marka maxaa dam war la diidaa jirtaba warku waaba sheekadu waaba dhamaatayba marka ninkaas waxa la soo bandhigay oo la sheekeysanayo oo iyaga la shirayo la baashalayo oo wuxuu leeyahay maxaa isla haysan uu leeyahay taliyaha ugu sareeya maamulka militariga shuftada waxa la yiraahdaa Iyal Zamir ayaa la yiraahdaa Iyal Zamir waa taliyaha ugu sareeya marka waxa la soo bandhigay isaga iyo saraakiil kale oo la fadhiyo amiirka shaydaanka Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed iyo la fadhiyo la qoslayo meel fadhiya ayaa la soo sawiray intii uu dagaalka soconayay marka Imaaraadka Carabta waxay ka taagan tahay war maxaa beentii waa idinka keenay marka Netanyahu ba xafiiskiisa daabacaya hadda sawirada baraha bulshada la soo galiyay oo Iyal Zamir iyo kan Imaaraadka Carabta maamulayo ayagoo meel wada fadhiyo meel waliba xeeb u yar u dhow fadhiya ayaa la soo bandhigay marka maalin kasta marka waa inta marka hore la yiraahdo idima sheegayno ninkii wuxuu yiri gabar ba nin baad waxa la yiri gabar buu yaani u tagay waa shukaansaday oo qaaban xalaal ahayn marka aniguna wuu baryaraa gabadha marka waxa iska tiri isku kan waxba ka qaadi maya kaalibay tiri ninku soo waa uu gaaban yahay ma waa 90 sano jir ku dhawaad wana 40kii gooyay weeye marka gabadhii hawshu markay dhamaatay ba 5 bilood kadib bay gabadhii wax iska dareentay oo marka ay tiri maxay jira soo yiri waramaad uur yeesha afwan markii ugu horeysa waxay ku tiri nin yarna waa tahayo laakiin amaad qaan gaarto uur yeesha suuri war aad uur yeelata taana kuma sheegay wuxuu 5 bilood yaanay ku sheegin Israa'iil Imaaraadka Carabta hadda kulmadii ay beerisaab sawiradii goobtii waqtigii wixii baa la soo qofaya waayahay haday saaxiibo tahay maxay sidan oo dhan ugu bahdalayaan waxa la diidayaa inay ka noqdaan Iiraan cadowba ka dhigataan waa inay ka dhigataan waa laynana waa inay tiraadaan waa inay afka Israa'iil ku hadashaan hadii kale waa la idin yaabo marka mar walba wax dafraan sawiradii iyo goobtii baa la soo bandhigaya baraha bulshada iyo warbaahinta caalamiga ah Imaaraadka Carabta waxay ka noqdeen hadda ceebla wax sidii qashinka oo kale lagu maadeysto ayay iyaguna noqdeen waa hagaag Saudi Arabia iyo Imaaraadka iyo Saudi Arabia wadanka Qatar horta waxad moodayeen xogaa isku siraasad hadda yihiin laakiin Imaaraadka Carabta waxay qorsheynaysaa barnaamij ay rabtay in iyadu waxa la yiri nin qoyin baa la yiri biis kama dhawro marka Imaaraadka Carabtu dayadu maadaama Israa'iil iyo Mareykanka godka la gashay oo ceeb ay dul huwanayso waxay leedahay waxa la yiri mudul gubtay kama naxmoogtahay laakiin Imaaraadka Sacuudiga iyo Qatar xogaa way taageersiin dabcan laakiin ismay dhiibeen waxay marka soo diyaarisay Imaaraadka Carabta laba maalmood ka hor labada jawaasiis ee Imaaraadka Sacuudiga maamulaya laba Maxamed magaca Nabi Maxamed inay sheegtaan banaad ugu xumahay magacyada ibliisiintu inay la baxaan ayay ahayd because iyagu waa saaxibul ibliis ma aha bariyadan ma aha xitaa darajahan Abdullah ibn Salul bay ku liitaan ninkan Abdullah ibn Salul aqoon iga raali noqo ku sharax mayo marka على أي حال مركب وحكوا تري إنه ما دام مركب محمد بن سلمان يوم محمد بن زيد كان دور ساعدوا كلوات طبعا وقت اللي مش يجين لكن مدة وده هاللين أريد قبل كي وده هاللين وحمرك إمارات عربت صوب نكتي إن وضمد الخليج كو إذا ما الدياريان نظام يلا الدياريو إيران لسك دفاعه إسلام كان يسيب دق إن لوجت نواقه هدي إيران يصور ويرتو الخليج كا إنه إيران ويرر يعني برامج كاس كل نواقه وحصل الديارية قدرنا والله سعودي عربي والله قدر السعودي عربي وحمر كساس لو فيري لكن waxa la wariyaa waxaan oo dhan imaaraadku waa aalad la isticmaalo Israa'iil ba ka soo shaqeynayso mukhaabaraadka Mossad iyo balaaya ka soo shaqeynayso iyadoo ku dhawaaqo baa la oranaya mana diidi karto waxa laga hayaa weyn waxa la yiri nin xiniyaha la hayaa
حل looguma fadhiyo waayo wax walba ma ilaaxniyaaba la hayaa mar waa buu oranaya moogtahay markuu waxa la yiri waka markuu way fahmeen markuu waxay ku tiri anigu cadowtooye aan muujinayn oo aan Iiraan u muujinayno sheeganayna ma jirto hadda muddadii koobneed 40 maalin dagaalkii aan galnay waa kuwa Mareykanka iyo Israa'iilna ceebayay oo na sheegay markii hore waxayna lahayn idima sheegayo waa idin qarinaya laakiin hadna waana sheegay Iiraan waan ogaatay hadda liiska cadowga ayaan ugu jirnaa dawladda wadanka Iiraan yaa inaga ka dhicinaya Mareykanka iyo Israa'iil haday macna leeyihiin waxa la yiri ari had wax tarayo dabadiisu daafacan laha ama difaacan laha war iyaga saldhigidood iyo wadamadooda daafacan leh waxa marka inagu noo hayaan waxa rabta waana sababta keentay in Saudi Arabia marka taa bedelkeeda marka Saudi Arabia waxay leedahay ana waxaan ka shaqeynayaa heshiis guud oo wadamada khaliijka isku u leeyihiin isla markaana Iiraan inaan weligeedna soo weerarin annagana inaan weligeed weerarin annaga inaan weligeed weerarin marka hadii hatta barnaamijkaas Iiraan ay fuliso iyaga ma fuli karaan because iyagu waa jawaasiis waa caloosho u shaqeystayaal la leeyahay weeye waa adoomo weeye marka yeelaa la oranaya marka Iiraan waxay heshiis la gaaraysaa dad go'aan leh oo aragti leh oo han iyo hadaf leh laakiin nimankan caloosho waaweyn ee xijaabin ee mujrimiinta ah dhaalimiinta ah Iiraan waqti ku mar luminayso Iiraan iyagu waa ka dheeraysa waxa la yiri ninkii aabaha dilay baa yiri hooyadana asayb u saaraya asay waxa la yiraahdaa gabadhu markuu saygeeda dhinto ee marada cad ee dumarka ee madax ku xidhaan baa la yiraahdaa intaan aqoon baa loola jeedaay alay taal markuu walaalkaas maraysa dabankii markii Imaaraadka Carabtu ay rabteen in Sacuudiga iyo Qatar ku riday waa ka boodeen iyaguna dabankii ay wadeen inkastoo kooda la oran karo wuxuu heshiis guud laakiin iyana waa diiday waxa qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa marka maxay ka dhigan tahay wadamada khaliijka la isku oran jiray hadda si dhab ah u kala jabeen Qatar iyo Saudi Arabia waxay dhabarka saarteen Turkiga iyo Pakistan oo iyagu laftirkooda kamid ah jawaasiista Mareykanka iyo maamulka shuftada Israa'iil isu tag Imaaraadka Carabta iyo Bahrain iyo Kuwait iyaguna waxay dhabarka saareen Israa'iil iyo Mareykanka hadda marka way kala jabeen labadan wadan marka dhamaantood waa jawaasiis yaani waxa la yiri biyo meel gudan bay isugu yimaadaan hadii hata 20 ilood ay biyaha ku yimaadaan ila halka ka yimaado imita halka waxa oo dhan ta isugu yimaanayaan meel gudan bay isugu yimaanayaan iyaga oo dhan macal Turkigood iyo Pakistaankood iyo qashinkood Israa'iil Mareykanka u shaqeynayaan laakiin mid walba kamid ah sida il walba kamid ah biyahani biyo kasto kamid ah ay il gooni ugu yimaadeen bayaguna jawaasiis gooni ugu yimaadeen marka waxa la leeyahay markii horeba wax islaam ahayn awood ma hayn dhaqaalay ahaayeen Imaaraadka waa la burburiyayba qadar ku dar Bahrain iyo xaalkeedu waa loo sahal Kuwait waxba iska ma dhicin karto marka waxa la leeyahay way markii horeba wada joogooda faa'iido kuma jirin marka horeba ummadda muslimiinta dulm iyo dhib ummadda muslimiinta ku haayeen haddana haday kala tagaan waxa la leeyahay waxba ma soo kordhinayaan iyagu baa la kala qaadanaya bal isu tag Imaaraadka Carabta waxay hadda kaalmo u raadsanaysaa dawladda wadanka Hindiya oo uu kala dhaxayo heshiis istiraatiiji ah oo labada difaac hadii labada wadan hadii midkood la soo weero in la wada difaaca heshiiskaasi marka hadda raadinaysa oo waliba shaydaanka hadda maamulaya Dubai ayuu jooga halkaas oo ururka BRICS la yiraahdo ay shir ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda marka walaalkaas ay maraysa bal adigu qiyaas aragtidaada ka dhiibee maxay kula tahay haday kala jabaan haday wada jiraan maxay faa'iido heli karaan maxay ma garanaysaa khasaare heli karaan kadib barnaamijka aragtidiina aniga Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan baan ahay dib intaan u kulmi doono nabadgelyo